waqtigu waa bishii abriil 1965 waxaa kulan uu dhex maray taliyaha ciidamada cirka gumaysiga Israa'iil Casiir Weizman iyo madaxii Mossad ee xilligaas Meir Amid ayaa Casiir ku yiri sidan: wax dalab ah miyaad haysaa? Wuxuu ugu jawaabay: waxaan doonayaa diyaaradda MiG-21. halkaas ay sheekadu kasoo bilaabanaysaa. sanadkii 1965 dowladaha Suuriya, Ciraaq iyo Masar ayaa dhammaantood helay diyaaradda MiG-21 oo uu Sofiyeedku farsameeyay. diyaaradan ayaa xilligaas ahayd tan ugu horumarsan uguna fiican diyaaradihii dagaalka ee jiilkeeda jiray, waana sababta Israa'iil target uga dhigatay inay gacanta ku dhigto. Israa'iil waxay doonaysay inay xogo iyo macluumaad ka hesho diyaaradan iyo qaabkii ay uga hortagi lahayd. qorshaha Israa'iil markii hore wuxuu ahaa in ay soo afduubato mid ka mid ah diyaaradaha MiG-21 ee ay lahaayeen ciidamada dalalka Carabta. sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo kan Israa'iil ee Mossad ayaa si wada jir ah u dejiyay qorshayaal dhowr ah sidii ay u heli lahaayeen diyaaradan. qorshaha koowaad wuxuu ahaa inay wadada u galaan mid ka mid ah diyaaradaha, kadibna ay ku qasbaan inay kasoo dejiyaan dhulalka ay Israa'iil xooga ku haysato. laakiin qorshahan ayaaba fashilmay ka hor inta aan la fulinin. qorshaha labaad wuxuu ahaa inay duuliye basaas u ah iyaga ku dhex beertaan mid ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka dalalka Carabta, balse mar labaad qorshahan waa uu fashilmay. qorshaha saddexaad wuxuu ahaa in wakiil ama duuliye basaas u ah ay ku dhex beeraan mid ka mid ah ciidamada cirka dalalka Carabta, kadibna ay ku qasbaan in uu diyaaradda MiG-21 kasoo dejiyo magaalada Tel Aviv. waana taas midda dhacday ficil ahaan, gaar ahaan dalka Ciraaq. saraakiisha Mossad waxay soo diyaariyeen dhammaan qorshayaashii ay ku fulin lahaayeen howlgalkan, waxayna miiska soo saareen magacyada ilaa 4 duuliye Ciraaqiyiin ah si mid ka mid ah ay u shaqaaleysiiyaan. shabaqa Mossad waxaa soo galay duuliye Munir Rufa. wuxuu ahaa duuliye Ciraaq masiixi ah kaasoo horey dhowr mar isugu dayay inuu isaga baxsado Ciraaq. si kadis ah habeen ka mid ah habeenada xaflad uu ka qayb galayay ayuu ku bartay haweeney u dhalatay dalka Ingiriiska. haweeneydanna waxaa qabay oo ay u dhaxday maamulaha shirkadda shidaalka ee Ciraaq. haweeneydan ma ahayn mid caadi ah ee waxay ahayd basaasad si hoose ula shaqeynaysay sirdoonka Mossad. intaas kadib Munir Rufa iyo haweeneydan waxaa dhex maray xiriir jacayl oo xaaraan ku dhisan. kadibna wuxuu u sheegayaa in uu aada u daneynayo in uu Ciraaq isaga baxsado oo uu Mareykanka iska dhiibo. waxay u sheegaysaa inay u balminayso sayigeeda si uu ula kulmo, kaasoo usoo bandhigi doona qorshe uu Ciraaq uga cararo Mareykankana ku tago. marka koowaad wuxuu usoo bandhigay in uu sababo caafimaad dartood shaqadiisa uga soo fasax qaato, kadibna asiga iyo qoyskiisa ay u wareegayaan deegaanada waqooyi ee Ciraaq, kadibna Iiraan, kadibna loo sii gudbin doono dalka Ingiriiska, halkaasoo looga sii gudbin doono Mareykanka. Munir Rufa isla markiiba waa uu aqbalay qorshaha uu usoo bandhigay sayga qabay haweeneyda uu xafladda ku bartay, balse uusan ogeyn in ay tahay basaasad Mossad si hoose ula shaqeysa. Munir markuu helay dhammaan dukumentiyadii uu baahnaa si uu uga baxo Ciraaq, wuxuu u safray magaalada Basra. halkaas waxaa lagu guddoonsiiyey baasaboor been abuur ah. wuxuu raacay mid ka mid ah maraakiibta shidaalka qaada. markii uu markabka fuulay Munir waxaa cabitaanka loogu daray kaniin hurdo. waqti aada u badan ayuuna hurdayay. Rufa wuxuu soo toosay isagoo dhex jooga magaalada Tel Aviv. isla markiiba saraakiisha Mossad ayaa ku bilaabay baaritaan, waxayna u sheegeen in wixii saacadaas ka dambeeya uu iyaga la shaqeyn doono. haddii uu diidana ay fadeexin doonaan, jaraa-idyadana ay ku baahin doonaan sawiradiisa isagoo la jooga saraakiisha Mossad. baaritaano iyo gorgortan dheer kadib Munir wuxuu aqbalay in uu fuliyo howlgalka eber 7. intaas kadib wuxuu dib uga laabtay Ciraaq. dhowr cisho kadibna qoyskiisa waxaa loo qaaday Iiraan, halkaasoo looga sii qaaday dalka Ingiriiska. maalmo kadib Munir wuxuu ku dhaqaaqi doonaa fulinta howlgalka ay Mossad u wakiilatay. saacaddu markay ku beegnayd 2:15 subaxnimo 16 Agoosto sanadkii 1966 raxan ka mid ah diyaaradaha MiG-21 ayaa ka kacay saldhigga ciidamada cirka Al Rashiid ee Ciraaq si ay u sameeyaan duulimaadyo tababar.
duuliyaasha waxaa ku jiray basaas muniir ruufa. saldhigga ciidamada cirka al-rashiid waxaa ka jiray jawi degan, wax walba si caadi ah ayay u socdeen. muniir wuxuu kiciyey diyaaradiisii hawada ayuuna galay. kadib si tartiib ah ayuu uga fogaaday qadkii ay ku wada duulayeen saaxiibadiisa kale, isagoo ku marmarsiyoonaya in uu sameynayo duulimaad tababar ah. laakiin daqiiqada kadib saraakiisha saldhigga waxay dareemeen in muniir uu kasii baxayo xuduudka hawada ciraaq, uuna fooda geliyey xuduudka ay la wadaagaan Jordan. nidaamyada difaaca hawada ciraaq markaas kama gaarin in ay wax ka qabtaan, sababtoo ah xawaaraha ay ku socotay diyaaradiisa. sidoo kale diyaaradaha dagaalka Jordan ayaa isku dayay in ay soo dejiyaan, balse kuma aysan guuleysan. ugu dambeyntii muniir ruufa wuxuu diyaaradiisii la galay hawada Falastiin, wuxuuna kasoo galay dhinaca badda dhimatay. islamarkiiba waxaa soo qabtay raadeerada Israa'iil, kuwaasoo islamarkiiba howlgeliyey nidaamyada digniinta si ay u shaaciyaan inuu kusoo food leeyahay weerar dhinaca cirka ah. daqiiqadahaas Israa'iil waxay gashay walwal iyo cabsi, waxayna kicisay diyaaradaheeda dagaalka si ay dhulka usoo dhigaan diyaaradan dagaal ee hawadooda soo gashay. laakiin ruufa wuxuu bilaabay in uu diyaaradda uu waday uu in badan hoos usoo dejiyo. islamarkiiba diyaaradaha Israa'iil ay isku diyaariyeen in ay gantaalo la beegsadaan, waxaa soo gaaray amar faraya in ay u ogolaadaan in uu diyaaradda soo dejiyo. Israa'iilna waxay ku guuleysatay inay hesho mid ka mid ah diyaaradihii dagaalka ugu casrisanaa waqtigaas ee ay haysteen dalalka carabta. khiyaanadan uu ruufa ku sameeyey dadkiisa iyo guud ahaan shucuubta carabta ayaa Israa'iil ka saacidi doonta dagaaladii ka dambeeyey ee ay la gashay carabta inay daraasiin ka mid ah diyaaradda MiG-21 dhulka soo dhigto, kadib markii ay kala furfurtay diyaaraddii uu hadiyad ahaanta ugu geeyey ruufa, ayna ogaatay in badan oo ka mid ah siraheeda. ruufa iyo qoyskiisa waxay muddo ku noolaayeen Tel Aviv ilaa uu markii dambe ku geeriyooday halkaas sanadkii 1998. Israa'iil waxaa looga yaqiinay halyeygii samada, halka dowladdii Ciraaq isagoo maqan ay ku riday xukun daldalaad ah maadaama uu sameeyey khiyaanadii ugu weyneed.